الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم الله. السلام عليكم الله. ناصر آمين. الله يقصد توحيدك. آمين. الله يقصد توحيدك. آمين. الله يقصد توحيدك. آمين. فكره يسلو ويديننا. أصبحت تذكر هي عفوا تذكر هي سنكرة لكن واحد قال لك توحيدك هي اللي ويديننا توحيدك أصلا مركب حالنا هاي الله يقصده. آمين. سنين كاس مرأة وحضي بويري فكوب جبنا يسحد مرأة وحضي فهذا اللي هو هي أبوي وكوب جبنا يسحد أذكر دردار مينا لبا بابور لبا صفوة بابور هانا مرأة وحاسوها وحيرو وحكرون ونايسا مرحوم كعافية فقال الله إن خريستان أنا العافية وقول هذا كيس هذا الله حريره صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan anigu ku hadlayaa magaca xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga qabanqaabada ee aaska qaran ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay waxaan markaa ugu horeysaa tacsiyo u dirayaa Allah u naxariisto walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow oo ahaa qof qaali ah waxaan doonayaa inaan tacsiyo u diro dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo Allah ha u naxariisto ilaahay su'aasha ha u fududeeyo Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo afgaaban oo af iyo adinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen shakhsi karaamo leh buu ahaa qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su'aasha u fududeeyo jannatul firdawsina geeyo Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar uu guntaday naftiisu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa marxaati baynu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo inteena kale oo ummadda Soomaaliyeed ah mas'uuliyiinta ah dawlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan si laban laabnaa suurto gelinaa in aynu dalkeena ka aasaasno nabad islaaxda magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof walba Soomaaliyeedba ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karaayo waxaynu ku sogooteynaa walaalkeen aaska qaran iyo ducada qaran waxa jiri doonto oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in 3 cisho kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga oran doono xafladaas haddii Ilaahay yiraahdo
waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxa inooga aadan oo keliya in aynu u ducayno waxa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cafinno dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafinno aynu iscafinno ilaahay aynu u barinno inuu u naxariisto innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu